كيلو قولكي ربي جينا خليل كيلو حداد هول قصدي قوان كذا قاضو نياداد قرحي أبد خير ما ليسو نياداد قرحي أبد خير ما ليسو روحي خير ما ليستا قبن قاب قيستا قدرك أسهل نتيجو قرحسن قدرك أسهل نتيجو قرحسن تلابتا ذا قاذو قارو قيمهاقا قرحي هولهاقو أقابي هبتوصن قرحي هولهاقو أقابي هبتوصن مركاد خوف دارنتو وهسيئوكو قبتو خليقاقا كاشو قرآنكا كوردي خليقاقا كاشو قرآنكا كوردي عبادة ذا قرصو إخلاصنا كو قرحي كو قول ويحي خيرا أما أفكا قبصو كو قول ويحي خيرا أما أفكا قبصو ولا الكيغا قالي ولا شي ذا قالي قولكي وان إدلي تلا ذي ذا قاضو قولكي وان إدلي تلا ذي ذا قاضو قرشي وقتقاقا ويل قيب قرآنكا قولكي ربي جينا خليل كيلو قولكي ربي جينا خليل كيلو حداد هول قصدي قوان كذا قاضو نياداد قرحي أبد خير ما ليسو نياداد قرحي أبد خير ما ليسو روحي خير ما ليستا قبن قاب قيستا قدرك أسهل نتيجو قرحسن قدرك أسهل نتيجو قرحسن تلابتا ذا قاذو قارو قيمهاقا قرحي هولهاقو أقابي هبتوصن قرحي هولهاقو أقابي هبتوصن مركاد خوف دارنتو وهسيئوكو قبتو خليقاقا كاشو قرآنكا كوردي خليقاقا كاشو قرآنكا كوردي عبادة ذا قرصو إخلاصنا كو قرحي كو قول ويحي خيرا أما أفكا قبصو كو قول ويحي خيرا أما أفكا قبصو ولا الكيغا قالي ولا شي ذا قالي قولكي وان إدلي تلا ذي ذا قاضو قولكي وان إدلي تلا ذي ذا قاضو محكمة والله فرنتاي ما أنت تاريخ تاعي لما تنكي بيشي سيديدات لما تكون يستقالك وحان قلينا فيلك نوم وديسنا محكمة الشرف له waxaan laga sugayay inaanu difaaciya ka heesano marka difaac ma haysano balse in labada eedeysane naloo dhageysto sida uu dhigayo qodobka 142 qaybtii saddexaad ee habka xeerka ciqaabta Ethiopia oraahdooda afkooda naloo dhageysto cadaynahan looga dhigo ay codsanaa maxkamaddu ka ogolaatay marka eedeysanaha koobaad wuxuu isku difaacayo soo jeediyo faadun محكمة شرفت لا هذا ما سنتهي وحال شيء وحبا كتيرة هل كان قاش بيكون جرعان يسي للي هاي المها عيادة وتهاي عرضت هيدا إسقى ده كوين مركا أساس يان وجو درسني قاش كا وملوان هاي المها يرنولي بويجا حنوسني قاش كراد إسنوعوني عرورتود ويعوني به باعوني مركز ساسان تانا ugu diray oo ani xaqayga ahaan dib uma arko ta kale ay sheegayaan biyaha kale taasna biyaha horta waxay yiraahdeen xaafado ay ku dhaamisaayo tirada u soo dhaami taana ma jirto oo xaafadu qasabad bay leedahay biyaha noo socda hal maalina ayay biyuhu naga maqnaayeen 10 laan u dhiiftay waxaan ku rooyo 10 laan noo soo dhaami
halkaa maalin bay taasi ahayd. ta kale dirdirsigana dee miciinuun baan u dirdirsanayaa oo kuwaygana caruurtaydana uu ka weyn yahay. tan kale jikada way seexisaa la leeyahayna way jirtaayo dee maadaama qof maadartay ciidan haysanin oo caruurtuuna ku yaryaryihiin aan ahay oo mula wuu kaajaa oo ka yar kaadi buu isku kaajaa saasaan jikada u seexiyaa. taasina saas weeyaan. ta kale maxay ahayd labada wiil anaa dhalay isaga dee ina yaroo korinayoon aayo u ahay weeyaan. marka dee kuwan dhalay iyo isaga isku sima dee waa ilmaan korinayo uunoon anumaan dhalin taasi. tan kale ay noqotay maxkamadda sharafta leh oo weliba aada uga codsanayo gabadhani waa naag qurba joog ah gabar qurba jooga waxay isticmaalaysaa waa qofta dibad ka timiday oo lacagay isticmaalaysaa. waxa kale oo la sheegayo oo waxaa jira isagana la yiraahdo Facebook oo anumaba aqaane ay magaalada dhan sheegayo naagtu saasayne dacaadaysayo meel walba saasay soo dhigtaayo ayay dadku yiraahdaan. taana maxay ahayd maxkamadda waxaan ka codsanaynaa inay gabadha naga qabato maxkamadda sharafta leh. midda kale waxaan anigu caruur yaryar baan haystaa markaa in xaggaana maarata dib la ii eego na aad baan maxkamadda uga codsanayaa. markii hore dee waana de ku xumaaye laakiin haddana waan sasaxay. hadda xataa qooshkaan u dirsanaya uma dirsado oo biyaha maalintay goda xataa aniga gabdhaha jaarka ii shuba ku yiraan dheriga ku karsade kayga yaraaye kuwaygaan bii la mid yahay ee wiilkayga in la ii daayana maxkamadda sharafta leh aad baan uga codsanayaa. waxaan horena wax kale ma ahayn in masayro on islaahay uun ninku inuu ku noqduba rabaayo ilmihana adiga usii korinayo unbaa igu jirtay wixiina iga baxay waxaan doonayaa waa wiilkayga la ii daayay dee maadaama aan sasaxay. maxkamadda sharafta leh aad bay umahadsan tahay aad baan u salaamayaa. waxaa weeyaan gabadhan hadda wiilka anigay ku dacwoonaysa wiilka aniga dhalay sida runta iyaduna way dhashay. waxaa jira wiilkan isagoo aada u yar oo haysato iyo habeenada ka mid ah gabadha xaafadda imid annagoo guriga ku jirnay hadal igu tiri hadalkii oo ahaa walaal meesha waxba ka qaban mayne meelaan ka soo shaqaysan yaan tegaynaa waxa un bay u jirto xaggeen aadnaa baan ku yiri waan tahriibaynaa bay igu tiri. waxaan ku yiri walaal hadda tahriibi kara min deegaankeennii oo namadan joognaa baan ku yiri dalkeennii Itoobiya marka waxaas niyadaada ka saar baan ku yiri. marka waxay noqotay in waxay hadalkii u socdaba in aan ku furo inaan la tahriibo ama inaan furo bay istaagtay. marka waan furay dhowr habeen kadib haddana waxaan maqlay Liibiya iyadii ka soo hadashay. ilmo yar baa naga dhaxeeyo yar sibi oo xilliga u baahnaa in gacanta la qabtaa ama hooyadii inuu ku raaxaysto ilmihii yaraa dhabteeda xilligaa buu ilmaha yar ku jiray. way iga dhaqaaqday Liibiya tagtay way tahriibtay. waxaa jira Ingiriiskii haddana sii gashay. waxaa weeyaan hadda markay maqashay ilmihii uu weynaaday waxbuu bartaa in anigu la soo daalaa dhacay in mushaharkayga aan ku soo koriyey iyo hadda ii timid ilmihii bay igu qabsatay hadda igu haysataa. waxaa weeyaan ilmahan xaquuqdii hooyo ku lahaa iyada muuse ilmahay uu ka helin. ilmahaygaana anaa usoo magaranaysa usoo rafaaday anaa soo korsaday anaa hooyo usoo ahaa anaa masaasada siinayay. marka waxaa weeyaan haddana waxay taagan tahay ilmihii intaan kugu dacweeyaan weli wax walba aan kaaga qaadi dacwadan maanta markaa ilmahaabaa igu keentay. ilmahayga waxay ku ogtahayna ma jirto. maxkamadda sharafta leh aad waxaan uga codsanayaa naagtan weliba ilmahan ay leedahay waan kaxaynayaa ee u wado dibadda nin baa qabadee naagtan ninka qabaa xitaa waxaa la ii sheegay nin aan wanaagsanin inuu yahay. ilmahaygana dal iyo dawlad iyo diin dhul leegu joogaadee. marka ilmahayga mar raba aniga dadka in liiga dhexgeeyo noocaas ayna garanayn ama ninka nooca ee waxa lagu sheegayo in ilmahayga hadda uu aabbo u noqdo
مرة بحال نكمي محكمة شرفت لي يدو تاي تحقلني سبحان ربا ناقتني المهيجة إني بنانك يا مرتو محكمة شرفت وما هتصنت هاي مرة دي تنبيه لمدة دي اللي هو واقعي أفكار هذا وحوي أنا يبين وحوي مرة هو إن لبدن وارد إن أي محكمة يكتبوا واردين وبتخلق علي وهدي إيه حبس خلص للجليون هدي لبدي الماض أكل أي يريرا أي نفتو ده حريص كسرت هاي يكرني كود إن كوالا إيجو متى كله مال وحلاي شيء مال ويتو أنت لما كتعود إنه كتير أي إذا سنال يهين يجو إن guriga laybka oo ilmay yaa midla galay gacanta laybka la gali gaaro guban gaaro dirqle jaga gacdi laga qabtay oo gabar jaarkii ay ka qabatay sidoo kale maalin way taxta gaari baa mid mari gaarintu kadin ka soo baxay isla jaarkoodu baa sheegay waxa weeye hooyo mid kale hadii labadii la xukumo ay si kala mudan yihiin hooyadii hooyadood shaqana ma hayso hantina ma haysato shaqaalaha dawladda xataa ma noqon karto uma xoogsan karto xamaal uma geli karto aabahood baa u ordo u shaqeeya xasidarna waa taas maxkamadda sharafta leh qutul daruurgoodii yani ka u raadinaya si adag waa aabaha horta hooyadu waa xagga haynta uune sida darteed sida ay dhugaya qodobka tadisiis la xiston xuquuqda caruurta laftiisa inay helaan waalid inay xaq u leeyihiin wadku kulligoodba ubad oo dhan waa duudubahan oo kuwa laftoodu gaardiyan u baahan yihiin ilaalin cid gacanta ku haysa gabadhana ehel ma laha hooyada cad ah ayaa ugu dhow sidoo kale wiilku wax ehela uu leeyahay ma jiro aabuhu wax ehela u haya maanta oo jooga maanta waddanka ma jiraan marka maxkamadda sharafta leh caruurta iyagoo la eegayo in xabsiga laga laalo ama loo fududeeyo ama ganax lacageed loogu bedelo ayaa si sharaf maxkamadda sharafta leh ka codsanaa sidoo kale ilmaha yar ee leeyahay iskuul laguma daro loo daray waa la geeyey waxaa uma garanaya qolobiyii tobantii wax lagu akhriyo damir xumadaada maaha hooyo totally ma oran kartid aniga hooyana kuumayhi hooyo saamaha kuumayhi hooyo labada gabdhood way isku dhaceen kadibna waa la kala maryan qayladii baan anigu kusoo baxay anigu kabta waan joogay xaafadda kabtaja haddaad joogto maad ka qabatid hooyo kolkiiba waan soo baxay kolkii gabadhii maryan sidee loo soo eri karaaba sidee la yidhi yadna baxtii kala joog bal kelmadaasoo kale iga jawaab bal soo doqonnimada damir la-aantaada maa nin xawilan anu waan kaa quustay samir ayaan kaa qaaday hooyo me wax la xawilay waa lagu xawilay waa lagu xawilay damir maynantiina lagu hoostii lahaa weli bax la odhan lahaa daa damir leedahay hantidaadii meeday lacagtaadii sheekh dhakhtar maalinba wax soo laga faaruq ninka saasoo ma tiid naagta ma dheeheedu baad eeganaysaa waa quruxda waxba uguma hooseynta quruxda inta la maydho lama cabo quruxda waa dabeecadda iyo dhaqanka hooyo ninkani horta wuu la bahdilay anigu wuu dilay oo suuqaan ka mari lahay laakiin oo dhaqanka reerkeennaba male laakiin anu arrin baa weydiin lahaa ninkan waxaa weydiinayaa xagga horta reerkoodii iyo qaraabadii derbi baa lagaga dhisay dheer xaggii kale ee gabadha reerkoodana waa loo furay laakiin waxaa weydiin lahaa raganimadiisa sababta uu ku maaray waaya gabadha yar ee maciinka u ahayd la joogtay ee dumaashadii iyo qoftiisii isugu tageen iyo sadoodii maxaa sababta intaan baan ku weydiin inagoo inoo kala dhamaatay walaalnima niide laakiin intaasoo ku weydiinaya sababta u kala maaray weyday waa damiir xumadiisa dee qofka hadduuna damiir lahayn aanu damqanayn muxuu ka damqan hadduu dhiig leeyahay lagumaba hoos dileen waaba dumara haba isku dhacaan sidee tanna loo bixiya tii kalena u joogtaa bal su-aashaa ka jawaab haddaad nin tahay waa raganima ma jirto dee eber gabadhan baad samuraayadda daawanaysaa faaruqee meesha kuu joogta ee hooyadeedna adiga iska ka dhex arkaysa si aan u taagan soddon guri taagan xaggaa lagu arkay hablaana laga qabaa ma tagne soddon guri taagan xaggaa lagu arkay oo si aan u dhex taagan guriga inanteeda mayadaad qabtaa ma soddodaad qabtaa bal kala saar inan irka su-aashaa bal ka jawaab maxaa gurigaaga dhex dhigay hablaana laga guursado maalintan diiqnaan kaxaynaa noogu dambaysa gurigoodii maxaa gurigaaga dhex dhigay maxayse kugu reebaan saaka raganimo ma haysato nin ma tiid oo maanta qayr kale ma kaftamaysid xoola maal ma haysatid maxaa tahay waxaas wax dhib lamahe waa gabadhana waxay xaafadeena ay u tagtay gabadha u tagtay iyadaa arrinta ii soo jeedisoo tiri walaashay maxay kuu soo jeedin gurigaagu ku dumi lahaa aan xaafadeena iska soo horjooga anna waxaasi dhuun bal intay cadho baxayaan
ay gabadhana cadho bixi xaafadda iska soo joogto waar maaha maas jooji waa difaacaysaa ila nin xawlan baa tayaga difaacaysaa sidaa lama odhan waxa lagu yidhi haddaad iyada saari weydo goo labadiinu waa israaca dabeedna waxaad xal mooday inaad inantiina soo erido laguma odhan sidaa waxba ha difaacin ila waad xawilanta hor reerkani way ku qandaraastena anigu waan kaa samraybe maantana arkay intaas gurigaaga soo galiyay dibna kuugu iman mayno haddaad hadal iga maqlina gabadhaa warqadeeda si fur intaanay awlaad kugu dhalin haddaad tale iga maqlood hooyanimo ixtiraamayso weeyaan islaantan sodada cabsigama hayso kamana baqanayo soo waxaad garatay maaha waan iska celin lahaa waa islaan sideeda habar loo waayo waa hoog loo jiid oo waan iska celin lahaa laakiin dhaqankii iyo dee dhaqankeeni dad Soomaaliyeed bay nahay iyo laba islaamood halka isku jiidinayaan deynaya talaaba aniga ilama qaadneen naagtan aad qabto ee faaruqa ee asaankeedu soo daawanaysto iyo adiga waan isla kiinacnay kuma rabno kuma doonayno adduunkan kugu maxarinay waa taladii u dambeysay soo keen dambeysay naagtan faraha ka qaad qoos baa tahay waanu kaa qusnay waan kaas dadka xabaalaha baa laga samraa waanu kaas baan kaa qusnay waan kaa tagnay nabad galiyo هوي حاجات هيسان لا أنا هوي يسن يا هوي كوا مصبيانة ترشرولي دركاك يقرح لانو بوياغاي فارو هوي أنا وحبان نقبانا يا ولي بادي هوي لورد قراعي لهاينة ونو كدا يدك صار لهاينة عبسي دك ما عيسا وحبان يغن وحبان حيرينينا سيدا هوي لعيال السوقات من هنا أنا داف تك استبراك أنا داف waxaan ku weydiiyey aflagaadada iyo cayda iyo dhibaatada hooyada iyo walaalka iyo walaashaha wada ma waxaas wax dhib la waa waalid baad aad la ficiltamaysaa Maryam waxa ku dhacay waan soo dhaweeyay guriga imaadeenoo biyaan soo waday oo aan ku soo socday misxirada iyo ma taqaanay aniga wax iga sheegay iyo say iga sheegay aniga waxaas wax dhib lama waalidku oo sixirkaada ka ku sixirada waalidku wax walba waxay ka xanaaqsantahay hooyo gabadhii islaayay waxay uga xanaaqsanaantahay su'aasha way weydiin kartaa hooyo maxay sanaysan ku dhicin bay tahay kartaa laakiin qaylo iyo cay ana soo dhaweeyay guriga keenay ma hadal iyo flagaata ka mutaystay marka maanta kaliyeeto hooyaday ku cayday baad qaadan lahayd Maryam sama oo soo qaadan way tahay isku ka soo raacay ama taqaanay soo raacay iyo wada flagaadinaya mid la duqnimada wadaatay ku aragtay adoo iyada dhulnadayda iyo macaldabadeeda waad wax ka sheegaysay maanta kaliyeeto hooyaday hadana hooyaday xaalad yar ka xanaaqsan tahay baad qaadan lahayd maxay qaasay hooyada ma dhakhtarba u qoray inay maalin walba ay caydo dhibaatada arkay hooyadii haday oo ogtahay hooyadii aan u dhigi karnaa anigoo taagan soo xadarta ma laakiin waxaan ogahay haday hooyada waxay doonto tiraadeen dad waxba ka soranaynin imikana waa waagda hadii aan kula joogana kulkii waan kala hadlaay soo diga guriga ku haray hadla damana la hadashaa doonaysa ma waa waalido amba way canaanatay oo aadintay canaanatay bay baxday laakiin xaalad baa ka xanaajisay hooyaday weligeedna mayna cay kula iman mayna aflagaadana kula imanin waxaad ku tashatay weeyaan adii hooyada iyo taqaanay dadkiin dalka fadhidan bad ku soo go'aansatayna waxay doontaa aniga igu tiraado حبيب نجدا وحس والد وين والد لما فعلت ما حس دب لما حبيبي اسك سو فرسون نجدا والله واحد قامسين وين فريسكم بها ولا ما كبريا نجدا وحس خلاف نجدا خلاف مكان ان يركي ريسنا ما خلاف ما كجرون والدك والله تقاطع والله سي الله سان يلا قرن والله مريم ilaa sheekadanadii ka soo bilow ilaa guurkanay saacada aan taaganay hooyadeed way nacayda kalkan weydiina waa waalid bay tiraahdaa ma hayuuna waa waalid iyadoo ag taagan bay nacaysi iyaduna maanta kaliyeeta u dul qaadan lahayd dhibaatada dhow ma heede hooyo ninkan ku active oo una fadhiyo on gurigun dhex fadhiya ma shaqaysa tiraad hooyo ninka maxaa shaqaysa ku ilaahdaa ninka way xaalkiisa iyo xaalkayga soo diga og xaal maxay aan ogaayano de hooyo ninkuna waxba haysanin oo shilinku hayeen aan ka baabiyay hay oo kolbasan dhakhtariygeeda hay gurigii u dambeeyay inaad uga dhakhtarka hindi igu geeyay hay wax kale dhinuna haysanin waad ogtahay hooyo hay ya waa ko shaqadina da waa laga eriyay hooyo shaqada waa laga eriyay shaqada waxa looga eriyay waxa weeyaan qorshaha iyo baleenkan hooyo u degneed ugu tiri kula guursana sidaas sameeyay haysid lacagta ka qaad dhakhtar kasta igu geed dahab iyo maxay iibida hooyo aanu hayay ha ya
ayaan hooyo ayuu hooyo ku kala kacay haye sidii lahaa waan u xanuunsanayaa dhakhtar kanigeeda kolba meel ii garab taagnaayo kolba garab socduhu ka tagin lahaa haye una shaqadiina uu ka habsaamay baa hooyo looga eriyo lagu ma shaqaysanaysi markaaba guriga ku dhex joogi damay hooyo qofka dun shaqeynaa dama gidaarada jiibsa waa inuu aroortii salaadii intuu kacaa uu shaqo tago uu magaalada ka soo raadiyo shaqada oo xamaal baaba la noqdaaye oo soo raadiyo maxaad ka ogtahay inuu shaqaystana uu lacag haysta maxaad ka ogtahay adigu alla hooyo xamaystay nogahay hooyo macaan maalinka ayaanu guriga ugu imanay ha shaqaysto seed wax ku heli hadduuna shaqaysanin oo seed wax ku burburin hadduuna lacag ba haysan may hooyo uu shaqaysanayaa shaqota hadda shaqaba kuma jiro oo nin shaqa camal aan la fadhiyo maaye laakiin hooyo shaqadii buna wali helino shaqadii buu sugayaa meel buu sugayaa iminka shaqadii buu sugayaa amba hooyo may qanacsi ha noqoto la doqon ha noqon amba shaqo kale ha noqoto wax shaqo hooyo sugayaa intaan waa shaqo raadisu haye marka hooyo inuu waxba haysan shin haysanana ogi dee dambe mayna dhigin guriga chiefkiisa iyo dhex fadhigiisa dambe mayna dhigin wuu raadsanayaa maba fadhiistaba hooyo suu shaqo u soo raadinayo marka aan imaadaba wuu hurdaa marka aan imaadaba wuu jiifaa markaan imaadaba gurigu mu dhex taagan yahay hooyo qaali marka timaado matiir baayo uu ka dhex baxay guriga hooyo sidaa maaha markuu yimaado waxaad la kulantaa un isagoo in markaa un soo galon baad la kulantaa markaa kala maaha naalo hadda xaafadda markasta waan imaadaya sida qof aan imanin ay moodinay hooyo qaali dee waa timaadaa waaniga koogi dee sawriga ugu imaado isagoo kula joogo hoosta kaaga jira hooyo macaan isagoo soo galay unbaad la kulantaa naya ninka baxdhe salaada subaxiyuuna loogu eedaamin guriga dambe mayna dhigin hooyo isagaba dambe u shaqo tagayo hooyo dantiisa haddii kale halkaa ha kuu fadhiyo cararey halkaa ha kuu fadhiyo heedhe berri toolana adaa u shaqayno haara yeelan dee hay ninka ayaanan guriga ugu imanin ha shaqo tago ninkan cukaas fadhi oo muxuu guriga ka jeefi ma waar baa meeshu naa shaqaysa dhaweeri ninka waar khayrna maanaa sheegine gurigan maxaad ka dhex qabanaysaa ood ka dhex fadhidaa ma waar baa meeshu mise waa xaruntii caafimaadka maxaad ka dhex qabataa maad aayaroo dhaltay shaqo tagtid maxaad ka dhex qabanaysaa gurigan hooyo shaqadii horena waa tii layga qaaday iminkana wax shaqoon hayaa ma jirto hay marka intaan shaqo raadsanayo hadee guriga inaan maxaa dhiboo jira haddaan guriga imaadaa waar anig kolba jaakeed buluuga ha igu soo dhicine heedhe shaqo tag haddaadan shaqo tagayn bay noqotay haddaadan shaqo tagaynin gabadha iska fur gabadhayda maxaad ku qabi baliishe shaqada kolla waa la helaa kolla waa la waayaa ma dhibe leeda hooyo shaqada waa la helaa marna waa la waayaa waa fur baan ku yidhi gabadha waryaa waa maxay hooyade naanina shaqaysanin aniga ku qabi fur warqada adu iska go'aansatay baa ma maxay gabadha warqada iigu qor ma maqlaysaa anigu waxaan shaqaysanaynin oo saaqida oon ii qor qabo qor baan ku yidhi hooyo shaytaanka iska naar hooyo war gabadha ii furo qor awlaadaadii baan naga xisho ilaahay baan kugu dharshoy waryaa ma qoraysaa mise ma qoraysaa ma qoraysaa mise ma qoraysaa